sida aan la wada socono Dayax waa fanaan dhalinyaro ah isla markaana xagga fanka dadku ay ku barteen waa shakhsi hantiyay gacan ku haynta hal xaas isla markaana la gaaray guulo badan oo xagga nolosha welina wehel uu yahay xaaskiisa sidaas oo ay tahay waxa uu fanaankan dhalinyarada uu la kulmay aflagaadaan dhamaad lahayn oo kaga imaanaysa kuwa isaga nacayb u qaaday waxay dhaheen waad iscadeysay waxaad bedeshay midabkaaga iyo xaaskaaga ayaa guumaysi ugu jirta dhagahadalkii aflagaadada qoraal iyo cod ahaan u soo gaaraya ma ahayn wax yar balse kartida iyo dulqaadka uu huwan yahay ayaa ka dhigtay mid uu kaga gudbay kuwa badan oo dabin la jeclaa kama quusan yoolkii uu hiigsanayay kama harin hogaankii uu xaaskiisa u hayay waxaana aflagaadada uuba ka qaaday dhiiranaan uu ku gaaray guulo badan kuwa qaar waxay soo qaateen sawiradiisa kuwa kalena magaciisa waxay doonaanna waa ay ku hadleen qalad kasta oo qofku uu galo Allah ayaa kula xisaabtamaya balse dadkeena qaar ayaaba noqday maxkamad kuna leh qofka wax sharaftiisa loogu xadgudbi karo intaa waa sheekada iyo xaalka Dayax oo muhiimada labada arinaan ka soo qaadanay sifaadkiisa wanaagsan iyo arinta kale waa in aflagaadooyin naftiisa lagu dhaawacayo loo geystay balse xumaan kasta oo bulshada qaarkood kaga imaanaysay marnaba ma uusan ku niyad jabin isaga haddaan dhanka kala eegno Xafsa Kuweyn waa gabar dhalinyaro isla markaana aad loogu yaqaan baraha bulshada waxa gabadhan ay soo martay marxalado kala duwan oo mararka qaar u horseeday inay dareento murugo badan fariimaha qalbigeeda lagu dhaawacay waxay ahaayeen kuwa xad dhaaf ah qof kasta waxa uu doono ayuu ku dhahayay balse ma noqon qof ka harta nolosha oo inta ilmada iska tirto ayaa hore ka sii dhaqaaqaysay kuwa badan ayaa ciilkaanbi ku riday cuqdad ma aysan qaadin oo waxay cagta marisay qof kasta oo cadow u ahaa isla markaana guusheeda hortaagnaa waxaa jiray kuwa badan oo aflagaado la daba joogay iyadoon waxba ka galabsan balse dembi kasta oo ay gasho waa mid diiwaankeeda uu leeyahay Allah isaga ayaana cafin karaa balse waxaa gabadhan maalmo badan ay lahayd cadow aysan aqoon halka ay kaga yimaadeen dadka qaar markay la kulmaan fariimo qalbigooda dhaawacaya ama aflagaado loo soo qorayo waxa ay ka niyijabaan horumar kasta oo ay sameynayeen balse dulqaadka Dayax iyo Xafsa ay muujiyeen ayaa noqday mid dad badan diiwaanka xasuustooda galay qof kasta oo wax xun dhaha qof kasta oo caay u soo qora ma noqon waxyaabo niyijabin kara iyaga isla markaana dib u dhigi kara noloshooda dulqaadka ay ku joogaanna waxa waa mid dadku ay ku tilmaameen kuwii dulqaadka badnaa xasuusnaaw xisaabta adduun Alle ay gaar u tahay isaga ayaana qalad kasta qofku galo kula xisaabtamaya ee aadna dembi ha ku mutaysanin caayda walaalka oo laga yaabo bari inaadan cafis weydiisan karin maadaama aad aqoon u leedahay adiga qofkaasi balse isaga uusan aqoon ku lahayn